waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno macluumaadka ku saabsan khaliifa xaftar oo lagu xidhay magaalada qaahir dhammaan dalalkii taageerayeyna isku raaceen in qof kale lagu bedelo waxaana aynu soo qaadanaynaa caddaymo iyo xaqiiqooyin warbaahineed oo laga soo xigtay dhinacyo badan oo siyaasadeed oo lagu kalsoonaan karo waase kuwama dhinacyada ay dalalkii taageeri jiray xaftar ku doonayaan inay haatan ku bedelaan qodobo kale ayaa raaci doona ku soo dhowaada barnaamijka allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleeloo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararoo weli way cakirantee cadaab iyo jannaalow ciirdarroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risa cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow shabakadda warbaahineed ee mada masar ayaa waxa ay baahisay in madaxweyne cabdifataax siisi uu xabsi guri geliyey jenaraalkii reer libiya ee martida u ahaa khaliifa xaftar mada masar oo soo xiganaysay kanaalka telefishinka ee libiya alaxraar ayaa waxa ay baahisay macluumaad uu warbaahinta siiyey ergeygii hore ee maraykanka u qaabilsanaa libiya jonathan winer oo sheegay in khaliifa xaftar aanu ka bixi karin magaalada qaahira ilaa laga go'aamiyo oo la calaamadiyo halka uu howlgab ahaan ugu sugnaan doono mustaqbalka jonathan winer waxa uu sheegay in xaftar ku sugnaan doono qaahira iyadoo ilaalayn adagna la saaray oo aanu ku soo noqon doonin libiya wakhtigan lagu jiro warbixin uu jonathan winer soo dhigay bartiisa twitterka oo uu ku sheegay inuu ka helay mas-uuliyiin masaariya ayuu waxa uu ku sheegay inaan si toosa xaftar looga cayrinaynin muuqaalka jira laakiin lagu sii hayn doono oo uu sii joogi doono magaalada qaahira ilaa xilli aan la cayimin oo ugu yaraan toddobaado koobana islamarkaana ilaalayn adag la saaray ilaa uu isagu u baahdo inuu helo meel uu howlgab ahaan iskaga noolaado waana warbixinta caddaynta u noqonaysa in khaliifa xaftar la dhigay xabsi guri magaalada qaahira ah oo uu xidhay saaxiibkiisii cabdifataax siisi oo shir jaraa'idkii uu la qabtay sabtidii la kulmay mucaaradad ballaaran oo gudaha libiya iyo dibaddeedaba sarkaal ka tirsan ciidanka xaftar ee libiya ayaa isna waxa u sheegay shabakadda warbaahineed ee dalka masar in jenaraal khaliifa xaftar uu haatan kusii sugnaan doono magaalada qaahira ilaalayn adagna la saaray laakiin aan markiiba laga dhex saaraynin saaxadda sababtoo ah waxa uu wax ka fulinayaa buu idhi qorshaha dhismaha haykal siyaasadeed oo bariga libiya yeesho taasoo macnaheedu yahay in laga saxiixayo qorshihii ka dambayn lahaa isaga iyo ciddii bariga libiya ee uu gacanta ku hayo lagu wareejin lahaa siyaasad ahaan waxaana hadalka sarkaalka libiyaanka ah ee ciidanka xaftar ka tirsan uu caddayn kale oo cad u yahay xaligga xabsi guriga ah ee xaftar lagu hayo magaalada qaahira iyadoo mas-uuliyiin masaariyihii u sheegeen shabakadda mada masar in caqiila salaax gudoomiyaha baarlamaanka libiya ee bariga waddankaa fadhiya aanu beddel u noqon karin khaliifa xaftar sababo ay ka mid yihiin da'diisa oo weyn iyo isagoo aan necbaashihiisa islaamiyiintu halkii laga doonayay gaarsiisnayn sida warbixinta loo dhigay dhankiisana mas-uul siyaasadeed oo libiyaana oo khaliifa xaftar u dhowdhow ayaa waxa uu sheegay in si loo dhiso kudlad ama isbaahaysi siyaasadeed oo ka horjeeda siyaasadda islaamiga ah ay masar lama huraan ku noqotay inay ku tiirsato shakhsiyaad ka mid ahaa nidaamkii mucamar al khadaafi kuwaas oo in badan oo ka mid yahay ay ku nooshahay magaalada qaahira xidhiir wanaagsanna ay la leeyihiin xukuumadda masar halka mas-uul kale oo masri ah uu isna caddeeyey in masar ay haatan diiradda saarayso oo wadahadal kula jirto xubno ka mid ahaa nidaamkii mucamar al khadaafi xitaa haddii aanay kala caddayn inay suuragal u tahay inay qaadan karaan door hogaamineed dhanka kalena madaxweynaha turkiga ayaa habeenkii xalay faahfaahin waxa uu ka bixiyey xidhiirkii telefoon ee ay galabnimadii isniinta wada yeesheen madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo ay ka wada hadleen arrimaha libiya waxaana uu ku sheegay suurtagalnimada in xilli kasta khaliifa xaftar laga saaro saaxadda waraysiga madaxweynaha turkiga oo uu siiyey telefishin laga leeyahay dalka turkiga kagana hadlay arrimo badan oo dalka libiya iyo caalamka ku saabsan
waxaa isagoo dhammaystiran aanu ku soo gudbin doonaa barnaamijyadeenna dambe haddii allaha awoodda lihi inuu oggolaado. afhayeen u hadlay madaxtooyada turkiga ayaa isna waxau tibaaxay suurtagalnimada waanwaan liibiya ka dhacda oo aanu khaliif alxaftar qayb ka noqonin. afhayeenka madaxtooyada turkiga ibraahim kaalin ayaa daaha ka qaaday inay halkaa yihiin macluumaad caddaynaya waanwaan aanu xaftar qayb ka noqonayn oo liibiya ka dhacda. waxaana afhayeenka oo waraysi siiye wargeyska miliat uu sheegay in laga yaabo in cahdigii xaftar dhammaaday. casilaadda khaliif alxaftar oo haatan u muuqata mid la isla wada qaatay ayaa noqonaysa tallaabo isbedel oo ku timi siyaasaddii liibiya, saameynna waxay ku yeelanaysaa saaxadda dagaalada. waana fulinta dalabaadkii xukuumadda dib u heshiisiinta qaran ee liibiya iyo waddamada taageerayey oo iyagu wixii ka dambeeyey diidmadiisii heshiiska xabadjoojineed ee moscow ee ay ruushku soo agaasimeen ay ku adkaysanayeen in aanu mar dambe meel ku lahayn mustaqbalka liibiya, wadahadal dambena aanay la geli doonin. xilligaa oo sidoo kale ay dowladda ruushkuna joojisay taakuladii ay siin jirtay xaftar maadaama uu caalamka hortiisa ku ceebeeyey oo uu magaalada moscow ku diiday inuu saxeixo heshiiska xabadjoojineed ee ruushku soo diyaariye ay xukuumadda liibiyana wafdigii ka socday ay saxeexeen. taa beddelkeedana uu khaliif alxaftar u hoggaansamay tacliimaadkii ay siinayeen sardoonka imaaraadka iyo masar oo ku dhiirigeliyey inuu diido xabadjoojinta oo uu qabsado magaalada tripoli oo uu muddo sannad ah duulaanku hayay. xilligaana ay ciidamadiisa ku sugnaayeen xaafadaheeda koonfureed, dhinac walbana uu ka xigay. laakiin nasiib xumadiisa muddo kooban lagaga soo saaray guud ahaan gobolladii galbeedka liibiya iyo qaybo ka tirsan koonfurta waddankaasi. xilligaa oo ay xukuumadda liibiya oo taageero ka helisay militariga turkigu ay duulaan ku qaaday fadhiisamadii khaliif alxaftar ee galbeedka liibiya, iyagoo ka faa'iidaysanaysay fursadda muuqatay ee ruushku ka cadhoodeen khaliif alxaftar. sidoo kalena khilaafku ka dhex taagnaa isbaahaysigii xaftar taageerayey oo ay ruushka oo dhinaca iyo sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca kale ahi isla galeen dagaalkii qiimaha shidaalka. wixii xilligaa ka dambeeyena ay ruushku joojiyeen inay calooshooda u shaqaystayaashoodii ku sugnaa duleedka tripoli ka qayb qaataan dagaalkii soconayey. ugu dambayntiina ay dib uga baxeen goobihii dagaalada, taasoo soo dedejisay jabka militari ee khaliif alxaftar kaga dhacay waddankaasi, kaasoo himiladiisii ahayd inuu maalin uun madaxweyne ka noqdo liibiya ay haatan u muuqato mid rajadeedii dhammaatay. نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدها. allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleeloo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankiiyo cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararoo weli way cakirantee cadaab iyo jannaalow cirdarroorshihii carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risa cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow.